فاطمة بنت خطاب مكة مركي اللي جوغ عمر سيفتا انتو سوقا تيبو يري ما انت اني محمد ويان اما محمد با مقالة مكة جوغي اماني قوم با جوغي isagoo dariiqa ku sii socda nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshii uu joogay Sacd ibn Abi Waqqas baa ka hor yimid oo ku yidhi yaa Umar xaggaad u socotaa wuxuu yidhi Muhammad baan u socdaa buu yidhi imma aniga imma isaga buu yidhi maanta maxaad ka rabtaa Muhammad dee diin buu noola yimid aanu garanayn buu yidhi ilaahiyadeedii buu naga ceebeeyey aabbayaasheedii dhinteen ahlan naar buu ku sheegay cuqaladeediina sufahaa buu ka soo qaaday labadii wada dhalatay uu madaxa isku geliyey محمد بلايون لا دحيمد مانتا اما اسغا اما انيغا اما وانيغا اما وا اسغا دونكا كبخايا وحوري محمد waxaad ka doonayso waa gardarre buuri maxamed tol iyo reer buu ka dhashay waxaad maxamed ka doonaysid aqalka walaasha inuu yaalo ma ogtahay buu ku yiri diinta maxamed uu la yimiday sawta aqalka walaasha dhexta Allah ma buu ku yiri Sa'd ibn Abi Waqqas marka uu islaamay islaamnimada isagu uu qarsanaya uu cabsanaya nabigana Umar ka jeedi buu isleeyahayo بل أخف الضررين عمر هكون نقطة سيديك وكحش وسعيدة يولاشين وقلنا حريسانية حقا نجيدي بولاي بلايدا صعوتا والنبي كجيدي لأن مركاسو وصوك لو وريقي أقل كيب صوك لي مركا ولاشي دي بدا انتو صوص عدبو مغلا مركا قرآن كي والله آخرنا أيو خباب صحابي اللورنجري رضي الله عنه أيا مركا أي مدي أو قرآن كأيو بري الزوجك فاطمة الزوج كذا يدبا خباب مركا قرآن كبرايي وصورة طه أوائل كيكا انتي صودكتي أو لغو صوقري حرق أيو ماركتاني كدو الأخرين يؤم عنينا أيي مرة اللي مركا فاطمة مقاشي ولكن عمر وصوص عدا أي آذو النحد عمر نين أذق بوها نين أذق وآذي آذو أذقو أن وحبلنا مريكا رين بوها لأن مركا قريسي سقيا مال بيكو قريسي يدي نين كيكينا ويسود ويون ويفريسيين عمر باكوري هنو هذا نقول مقلاي وما حجوري حبا مجرام بيكون ترى محاجر اسقابوجي حبا مقلاي شيء يقول اقلك وحبا سوق لي ومع سوق لي لا اقلك دين محمد باقلك تكو هيسان قرين سنه فاطمه الشيخ وورقد واحد اخري سنه يديب markaas uu doonay inuu ka qaado maaragtaan qorqadii harigi uu ku qornaa maaragtaan quraanku way ka booday markaa way kala booday iyaduna dadna markaas seedigii buu darbaaxa ku dhiftay walaashii buu darbaaxa intuu ku dhiftay dhulka ula dhacday markaa bay ku tiri war waxa doonta sameey bay ku tiri aniga zawjkayguba waan islaamnay ku tiri quraankan ilaahayna ku dhiibi meeyna bay tiri waaye nin najaasa tahay najaas imma soomeeyo imma soo weysayso labada mid baan quraanka ilaahay kugu dhiibaynaaye waxa le waxaad sameyn karta samee diinta islaamka ee Muhammad uu noola yimidayna waa xaq to aan ka noqonayna ma aha bay ku tiri Umar waaga ku bariya markaas seedigii dhulku la dhacay walaashii dhulku ku dhiftay isageena madaxa iyo qabsaday markaasuu ilay diinta tacab u galeen dadkani moogtahay walaashii uu dharbaaxay seedigii laabtu kaga fadhiistay ilaahay azza wa jalla markaa qalbigii Umar baa ilaahay jilciyay wuxuu ii dhiibahan akhriya soo weysa qaado uu soo weysa qaatay markaas u dhiibtay Umar nin reer magaalo wax akhriya buu ahaa marka horeba deedna markuu akhriyo taah ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى آخر الآيات مركو عمر أخري أيود أين محمد إيجي يبود عليه الصلاة والسلام قرآن إلهي مركو أخري بقلبي سيبا جلعي آوي محمد هالكوجوغا إيجي خباب ومركا الله قريني ومعلن كي مركا فاطمة الزوج كده قرآن كبريها أيا سرير تكسو اصبحوا يري أبشر بيري يا عمر حاليتو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا لبدا ذا دقود كم مغلا يسوق دعينيا أو لبا عمر متكود له ودينتن كو عزيب والنبي يقولها عمر بن الخطاب وعمر بن هشام عمر بن هشام وأبي جهل ويان عمر بن الخطاب وعمر الفاروق ويان إله لبدا عمر واللبا نين أو قريش وقو جيس النبا بني بيها أيان لأن دينتن شخص جيسية شخص سخية أو غنية أي دينتن وحوق بنكر ولا ليال إله لبدا عمر متكود دينتن كو عزيب والنبي يقول دعادي أذاك وقود على بشار يسبو كيدي قعنت انتو سو قبتay buu u keenay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo farxay rasuulkeenu Umar walaashi uu waxbuu yeelay laakiin qalbigiisa baa ilaahay furay qalbigiisa baa ilaahay u furay naxariistii markaas Hamza nabiga u galay Umar baa soo socdo seefna wata markaa buu nabigu ii soo galiyay aniga inaguna banaanka ku hadha
markaasaa loo geliyey nebiga sal alla alay wasalam uu ku booday nebigu halkaasuu cumar qabtay markaa buu ku yidhi aslim ya cumar aslim ya bna khataab allaahuma hdihi waxaa la yidhi dacwad iyo ducuu nebigu iskugu daray warina khataabo islaam buu nebigu yidhi waxa uuna yidhi ilaahu cumar bnu khataab qalbigiisa adahya soo jeedi markaa buu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anaka rasuulu llah isla markiiba cumar wuxuu yidhi muslimiinta markay maqleen cumar waa shahaadanaya takbiir bay ku dhifteen markaa buu yihi yaa rasuul allah xaq ma ku taagannahay mise kuma taagnin waan ku taagannahay ayakuna baatil ma ku taagan yihiin quraysh mise kuma taagna way ku taagan yihiin xaqa la qarin maayo maanta wixii ka dambeeya banaanka usoo saar buu ka yidhi cizigii islaamkaa bilaabmay yaana u sababa haweeney faatimata bintu khataab radia allahu canha maalintuu cumar islaamay islaamkii cizi baa u korodhay maalinta